بسم الله الرحمن الرحيم. welcome back mar kale. maanta waxaan hor yaalo cashirkii socday taxanana ahaa chapter 2 ahaa marka waxaan soo baranay darsigii ka horeeyay waxaan soo baranay sida loo report gareeyo ama sida loo sharaxo sida looga faa'iideysto table-ka maadaama aan dib u soo marnay xogteennii isku dhex yaacsaneed inaan soo nidaamino oo step 1 soo marno step 2 step 3 kadib xogtii xog ka dhigno xor leh oo la fahmi karo waan table-ka ku shubnay kadibna waxaan darsiga ku fahmnay xogtaan aan soo tiirta cabeelnay maxaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay shalay darsigii hore waxaan ka faa'iidnay in maxaa ku raahdaa xogtii aan fahmnay magaceeda xogtiina fahmnay sabarka qaata 40 maalmood ahaa xogtiina fahmnay dadka majority waxay isugu jiraan dad liita xogta majority xogtiina tahay bawra aad kugu yar iyo normal laakiin in yar bis waxay noqotay maxaa ku raahdaa hay halkan waxa ka muuqata waxaan ku heshiinay qofkii transportation-kiisu noqdo hal ilaa bar waxaa u naqaano inuu yahay low qofkii laakiin maalinta isticmaal bawraacdiisa 2 bar ilaa 7 waxaa u bixinay normal inuu yahay dadka isticmaal gaaraacdu maxay 7 ilaa 10 waxaa u bixinay high markaan fiirin waxaan fahmnay dadka 45 inay maalmaha aan isticmaal gaaraacdiga 45 inay ahayd low yani isticmaalkayga 40 cisho soo dhaafay gaaraaciga 45 ka mid ah waxay noqotay maxay low boqolkiiba 45 kale waxay noqotay normal laakiin boqolkiiba 10 isticmaalkii maxay high ahaa waxaan dhihi karnaa waxaan fahmay bawraaca markaan fiirnay 10% bisa waxay high ahay bawraacada laakiin 90% gaaraacada wuxuu kugu ahaa maxay normal iyo low kugu ahaa kadibna waxay ka bixi tala bixin inta waxaan ku fahmnay darsiga ku fahmnay oo aan soo qaadanay kii hore marka maanta marka waxaan rabnaa wayska loo soo bandhigo xogta waxaan bilowgii jabtarkaan ku sheegnay inay tahay laba qayb tahay xogta waxaan kusoo bandhigi karnaa laba qaybood horaan u sheegnay qayb waxay ahayd by table waa kana inaan step 1 marnay step 2 marnay 3 marnay kadib aan table ku shubnay kadib xogta soo bandhigin kadib aan report qornay waa dhamaatay phase kale wuxuu noqon doonaa xogteena ku soo bandhigin maxay qaab yani chart ah sawir ah graph ah soo marka xogta soo bandhigida visualization la yiraahdaa xogta soo muujiyo qaabka waxaan fahmnay table-ka hadda waxa inoo har marka xogteena sidee u soo muujin karnaa qaab shax ah ama chart ah ama sawir ah marka chartada isticmaalna badanaa waa oo main-ka ah qaara main ah waa isticmaalna mostly qaarna waa iska low isticmaalkooda kuwa marka ugu muhiimsan ee la isticmaalo dadka researcherska haddii tahay xogta soo bandhig waxay kulli waxay badanaa sarfiyada lagu qoro buugta lagu qoro dhammaan almost waa 5 charti oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa part aan qoro waxaa mid waxaa loo yaqaanaa maxay mid waxaa loo yaqaanaa histogram let me kalkaan ka dhiga caddaan mid waxaa loo yaqaanaa histogram mid waxaa loo yaqaanaa bar chart mid waxaa loo yaqaanaa pie chart mid waxaa loo yaqaanaa line chart mid waxaa loo yaqaanaa polygon marka 5 chart ayaa ugu caansan mainly statistically markaan xogta soo bandhigayno waxaa ugu histogram bar chart pie chart iyo line chart iyo polygon marka waa chartiyo waa jaantusyo waa sawiro xogtii aan nidaamsiisnayn aan soo nidaamisay kugu soo muujinaa qaab sawireed si go'aan loo gaaro aan tacriifiyo chartiga sawirka maxaa loo isticmaalaa that's question sawirka waxaa loo isticmaalaa xogtii aad soo ururisay aad soo nidaamisay
inaad ku soo bandhigto qaab sawir ah si loo qaato go'aan kana fiiri xogta maxaa table loogu shubay xogta waxaa table loogu shubay in xogtii la soo nidaamiyo stepskan soo marno xogtaan table ku shubno why table loogu shubay si xogtii loogu gaaro go'aan loo fahmi karo si fudud kan waa samki markaan soo koobo xogtan soo bandhigo laba qaab waay inaan ku soo bandhigo qaab table ah oo naqaano frequency distribution table iyo xogtan ku soo bandhigo qaab graphical graph waa graphical qaab graphical markaan leeyahay graphical kaas it can be 5 waa graph ama waa chart histogram bar chart pie chart line chart iyo polygon marka maanta waxaan rabnaa markaan isku soo xiro sideen xogteennii aan soo ururinay uga dhigi karaa graph kadibna aan u samayn karaa reports mid ogsoonow xogta aan soo ururiyey aan ka dhigay table ka dhigay aan analyze gareeyey aan report gareeyey reportkaas ii soo baxay iyo markaan xogta isla ayadii laftirkeeda aan ku sameeyo chart reportkeeda waxaan rabnaa inay noqdaan same ma kala duwanaan because hal xogaan isticmaalay xogtii box bandhigay by table xogta waxba ii sheegtay isla ayadii qaado ku soo bandhig by histogram amba mid kaart qaado markaan soo qoro reportkeyga aan raadinayo xogta magaceeda iyo sambalka isticmaalay iyo majoritygeeda iyo minoritygeeda iyo conclusiongeeda maxay waxaan rabnaa inay noqdaan same because hal xog haysta that's one naa marka sidee loo sawiraa chartida marka haddaa xasuustaan bilowga chapterka waxaan kusoo bandhignay histogramka iyo bar chartiga iyo pie chartiga iyo line chartiga iyo polygon waxa kulli qofku markuu arko inuu fahmi karo waxay chartigan histogram waay chartigan polygon waay chartigan line chart waay chartigan si hor dhaca ayaa u sheegay mid kasta maxay qaabkuu noqon doonayo siduu yahay marka aragtaa first side marka aragtaanba qofku inuu sheegi karo graafkaasi waxa uu naqaanaa histogram waxa uu naqaanaa bar chart taa waa soo baranay qofkii fahmina fadlan video ku laabo aan ku soo bayaaniyey waxay sidoo kala duwan yihiin iyo sidoo kale soo saar maxay chartida maanta waxaan rabnaa kaliya inaan ku fahamsiiyo sidee chartiga loo sameeyaa that's the main maanta inaan baranaa sidee chartiga loo sameeyaa markaan ka bilaawno histogram ka bilaawo kadibna aan ku xijay budget hore waxaan u soo sheegay si hor dhacay maxay in labadan charti ay isku mid yihiin haddana ay kala mid yihiin isku egi laakiin ay kala duwan yihiin labadan chartina waa isku mid waana kala mid tusaale aan qaato si oo by short ah chart markuu saan yahay markuu saan yahay iyo markuu saan yahay they are different qofka markuu fiiri muuqaal ahaan like same maahan because fiiri kan waxa u dhexeeya gap fiiri ushaan baarkan iyo baarkan waxa u dhexeeya gap u dhexeeya like fiiri kan waxa u dhexeeya no gap darbi waa sare u dhexeeya markuu saan yahay usan gap lahayn ogsoonow waxa u naqaanaa histogram laakiin markuu gap leeyahay waxa u naqaanaa bar chart that's the difference waxay noo soo haray kanika marka labadan xabo markaan fiirno mid waa saas dhibcahaas mid waa saan midna waa saan okay markuu graafkaaga saan yahay kan wuxuu leeyahay gees fil kana gees ma laha you see kan wuxuu leeyahay gees fiiqan kan gees ma laha soo marka anyway haddii uu graafkaagii uu yahay mid gees leh waxaa loo yaqaanaa polygon because polygon goonkaas waa gees waay waxaan ku soo baranay chemistry waagii hore bersamaadkii waxaan soo baranay polygon hexagon heptagon octagon nonagon decagon marka goonkaas waa gees waay polyna badana waa geesa badane laakiin matala fiiri waxa xisaabta raacsan deca
gon dika dieshwa gon geeswa octagon octa ottawa watalan sideed waa gon geeswa heptagon you see nona active nove ama 9 nona gonkaas waa gees marka polygon waa markuu graafkaaga leeyahay gees waxaa loo yaqaanaa polygon markuusan lahayn waxaa u naqaanaa simple waxaa u naqaanaa line chart laakiin markaan fiirin bay muuqaalka waraysan waxay muuqataa inay yihiin same maahan waxay kala duwan yihiin gees oo leeyahay gees ma lahan kan waa polygon kan waa line chart waxay kala duwan yihiin kan space ma lahan histogram waaye kan space oo leeyahay bar chart waaye laakiin mid ka dhexe waa unique ma lagu khaldami karo because kan dhexe waa saas waa mid circle ah waa saas kadibna maybe qaybtan maybe kan waa 25 boqolkiiba waa 10% kan waa 80 amsa marka markuu yahay circle-ka wareegi waxaa u naqaanaa pie chart marka kan waa pie chart waaye oo unique waa wareegsan yahay waa circle waaye laakiin kuwan kale maxay waa khaas marka inta waxaan rabnaa inaan fahmno one by one sidee loo sameeyaa kadibna sidee loo report gareeyaa ayaa maanta yahay cashirkeena markaashaa soo dhawow maskaxdaada fur telefoonkaas ka dami saaxib ila soco ha mashquulin soo jeeso okay aan ka bilaabo histogramka markaan ka bilaabayo maxay waxaa u baahan tahay mid taagan iyo mid jiifo kan waxaa u naqaanaa mar kastaba kan taagan waxaa iskale frequency iskale midkan laakiin jiifo waxaa iskale ci waa class intervalkaaga because hore waxaan u sheegnay xogtaasi laba qayb waay wixii laga hadlaayay iyo wixii sameeyey aniga waxaan ka hadlaynaa transportation maxaan ku qiimeynay days marka frequency-ga intuu leeyahay waa dayskaaga waaye kan lacagti waaye kan waa maalmihii soo laabtay isticmaalkaagii kanna lacagta isticmaasha waaye marka automatically waxaan tegi karaa maxay xaggaan tegaysaa xogtaan soo guuri xaggaas u qoro marka kan dhisaynayna waxaan soo qaadanay laba step jiro laba qaabood ama laba style waxaa samayn karaysaa inaad tiraa 1 ilaa 2.5 first group waaye second groupna maxay kanka bilaaw waa sameyn ama waxaa kuu furan maxay inaad labada group aad kala fujisaan aad 2.5 intaan ka bilaabo 2.6 laakiin marka ay tahay histogramka marka hal shay gudamka haddii histogram laga rabo histogram waxaa loo ogolaan gap hadduu gap yeesho muxuu noqon doonaa bar chart marka haddii histogramkaas aan gap loo ogolaan gapkaas ka soo bilaabo marka hore maxay design-ka bilaabo inta ku ekay 2.5 inta ka bilaabay maxaan diiday gap marka fiir labada group gap u dhaxeeyo you see inta ku dhamaaday 2.5 inta ka bilaabay 2.5 marka in this case gap ma jiro marka kan markaa isticmaalayo waxaa iskale only histogram because no gap laakiin markaa isticmaal rabo bar chartiga waxaan ku qasbanahay inaan kala fujiyo kan markaa ka dhigo 2.5 kan aan ka dhigo 2.6 sida maxay u sii space markaan gaarno okay marka intaan aan soo qaato inta waxaan u qanaa ci deed maxay aan soo qaato intaan geena xaggaas waxa iskale my frequency-na inta ku qora marka frequency ka bilaabo frequency-ga waxa isweydiinaa kow frequency ugu sareeyo meeqa waay ya ugu sareeyo 18 frequency ugu sareeyo 18 marka 18 ka badan aniga ma u baahni ugu badnaan waa 18 waaye ka badan aniga ma u baahni marka inaan 18 gaaro waxaa samayn karnaa dhowr qaabood inaan aho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 xoogaanaso 18 gaarto you can ama inaan isticmaalo maxay default by 2 aan labalaba ka boodo si maxay u soo yareeyo masaafadii aan dhaho 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ama by 3 ano 3 6 9 12 15 18 na waa sameyn kartaa marka aan isticmaalno by 2 labo afar lix sideed toban labiyo toban
أفريتون لحيتون 18 yes 18 16 14 12 10 8 6 4 2 maxaa dhameeyey frequency-ga maxaa ii dhiman inaan waxay isticmaalo wax loo yaqaano CI marka CI-deena sida noo muuqata maxay kan iyo kan waa isku mid 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 because maxaan soo celinay 2.5 maxaan soo celinay 4 maxaan soo celinay 5 iyo bar marka maadaama isku mid yihiin waxaan qaadan doonaa kan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan iyo kan isticmaal waa imisa 1 2 3 4 5 6 7 toddoba xaba u baahan tahay inaad isticmaal maxay 1 2 3 4 5 6 7 maxaa ka bilaabay 1 intee geeyey 2.5 maxaa ku sii xigo 4 maxaa ku sii xigo 5.5 maxaa ku sii xigo 7 maxaa ku sii xigo 8.5 maxaa ku sii xigo 10 yes good marka waxaa rabaa inaan sameeyo markaas connectionka aan isku xiro because fiiri isticmaalka lacagahayga 1 ilaa 2.5 dollar waxaan isticmaalay 18 days 18 gaas kale frequency kale marka 18 gaarsiinaysa maxay isticmaalkan aan isticmaalay $1 ilaa $2 iyo bar waxaan isticmaalay ilaa 18 days xaggaas ayuu tagaagaas kayaas kale 18 kale waxaa ii soo haray isticmaalka aan isticmaalay inta u dhaxayso 2.5 ilaa 4 8 from 2.5 ilaa 4na 8 because gaab ma jiro gaab maxaa diiday intaan ku simay 2.5 intaan ka bilaabay derbiga 2.5 derbigan ka bilaabay from 2.5 ilaa 4 wuxuu gaar 8 hour waa 8 waxaa ku aadan this one qiyaasaan kama waxaa u bixinay 8 you see waxaa ii dhiman inaan ku xijiyo maxay 4 ilaa 5.5 na waa 5 4 ilaa 5.5 na waa 5 waa 5 hour 5 waa between 4 ilaa 6 mo xaggaas kala barkaas qiyaaso xaggaas qiyaas this 5 yes waxaa ku dhiman again 7 ilaa 8.5 na sorry 5.5 ilaa 7 na waa 5 ilaa 7 na waa 5 waa same xaggaas bis soo kaxay kan waa 5 waxay dhiman 7 ilaa 8.5 na waa 2 hour waa ka 2 7 ilaa 8.5 waa 2 again 8.5 ilaa 10 na waa 2 ilaa 10 waa 2 okay fine waxaan dhameeyey waxaa loo yaqaan maxay histogram chart inta waxaa ku yaallo histogram sawirkaas waa sameeyey marka okay marka waxaan rabaa in aan hadda kadib aan reportkii aan soo qoraayo mid la mid aan qoro waa inay noqdaan markaas again same because waxaan isticmaalay hal xogaa isticmaalnay xogtaan isticmaalnay data ku sameynay sorry table-kii reportaan qornay oo kala baxnay again another way waxaan rabnaa xogtii aan ka dhigay chartna inaan report ka sameeyay labada report waxaan rabnaa inay noqdaan same marka sidee loo sawiraa sidaas waa sidee loo report garan waxaa loo report garayn karaa koo waxaa u baahan tahay xogta magaceeda secondna sample size-kaagii thirdna majority-gaadii fourthna minority-gaagii 50na recommendation baa soma intii marka aan sheegay marka kow aan ka bilaabo marka maxaan ku heshiinay marka inaan meel saaro waxaan ka hadlaya maadaama transportationta bawraacsan ka hadlayna maxaa u naqaanaa low imisa low horta aan ku heshiino standard ahaan
والله أنت استعمالي أنت استعمالي وحدي كنا ورأس أدويرة لوه مالماسنا it was normal مالماسنا يعني بوراعي هايوا مرك هورا وحال محي مال سارو كدي محي استاندك كود تقياسه شنو كوي شيني in وحي 1 إلى 2.5 مالما استعمالي إني نقدر محي low مالما استعمالي 2.5 إلى 7 إني normal مالما استعمالي 7 إلى 10 إني استعمالك too much و high مركا isku xiro imise maalmood ayaa loo ahaa boqolkiiba sheegta magas imise maalmood ayaa normal ahaa boqolkiiba meeqo imise maalmood ayaan high ahaa boqolkiiba meeqo okay fine isticmaalka waxaa u bixinay shan waxaan ku heshiinay hal ilaa iyo $2 waa low haddaa xasuustaan 2.5 ilaa iyo 7 normal wixii 7 ka sareeyo إلا 10 وهاي. صحيح. That's the point of question. Okay, fine. Good. مرك مثال لوه 1 إلا $2.5 وحاي استعماله 18 days استعماله 18 days is what days 18 days وحاي استعماله 1 إلا 2.5 مرك فيري 18 days out of 40 محاول نقضي 45 بقول كيوا آوي باك مرك هكذا مع استعمال 18 days كم كنت بقول له سو كنت 18 days أو كم ده 40 days وحاسب 18 لو قي 40 بقول كي 45 مرك استعمال كي جارة بقول كي 45 بس ده كم ده معلومة هي معي وهي هاين low this was low إمسا نورمال أنت سوى أنت بيقام قصة حوا 8 plus 5 plus 5 18 كلوة 18 كاس كلاجم حي normal ولا حي وها normal إيه again 18 out of 40 وها نقضي 45 yes إمسا هاي وها نقضي كلية و 4 only أفر كم ده معلومة out of 40 oo la mid ah 10% hay waa high inta high way isticmaalkayga inta normal isticmaalkayga inta low now markaan ka riboto jaamca ku heshiinay standard oo local ah anaga naqaano ayaan ku heshiinay tusaale ahaan marqa fiiri adduunku waxa jecel yahay standard raaco statistically wuu jiraa standardkaas tusaale ahaan marqa waxa qabanaa sheek sarfiyo ku saabsan labor force sarfi labor waxana muruqmaalka ama xooga dadka shaqeysto marka reportkan qoraayo waa inaan fahmo adduunka markaan joogno maxaa loo ogolay inay shaqeyn karaan because waxa shaqeyn age waa xogtan keentay maxay waxa inaan ogaado boqolkiiba intee shaqeyneen waa inaan ogaado kow dadka shaqada loo ogolay kuwa lacala markii inaad tiraa qof cunug 2 sano jira ma shaqeeyo taas khalad because maxaa khilaaftay standardka adduunka khilaaftay standard adduunka wuxuu leeyahay dadka 18 years ka badan shaqeysan karaan marka inaad tiro kooba imisa 18 years old jirto إمسا كواس كشقيني تصالح لعل لو بقول أخفوت تصالحان 18 years كسرية لو دي بقول حاشق قياس كليم هاي بقول محل أمريكا بالجا منتظر شغل أنت أنا بقول أي شقيسه هذا فوت لو بقول 50% نتكاس ماشي دوغو مش قيستان لكن ما حنكتب واحد 18 كيلو وتشالي ده هاي شقة مجاري أنا كنا ريبوت waxaa ka horeysa koow inaad taqaan maxay standard aniga maxaan ka hadlaynaa shaygaas midalan guurka kale ama sheegayna fertility dhalmada kale dhalmada markii laga hadlayo weerina ribot la qorayo suppose waxaa staa ribot saabsan dhalmada dumarka dhalan then marka aqli ma sheegay tira gabadh oo 5 jir ah ma dhalan maxaa ku diiday standardka waafaqsan standard caalam wuxuu qabaa wixii 15 ka sareeyo maxay ilaa 45 wixii inta dumar ay jiraan imisa dhalan كدب أنا وقاعد ريبوت كان سوقر معي حكتان هستو بعد كده حبارة مكاس بقول كيف إنتر روح 15 كسرسو فرتسن كاسم هاي إمسح بلين من حاكودنا ريبوت كاي مع إنه ما يلنا هدوسن جيرين بنش مارك أم هاي ميل لو تيرنا مركز ناس بورع أيوة لو بحق بس جرس
waxaan ku bees garay xaafadda ka imaanayo meesha tagay marka firikadii waxa ogaad maxay bawracayga intaas daa isticmaalo normal way intaasna waa high way marka waxaan ka wadnaa qeeray in la fahmo marka hore maxay standardka reportkan laga rabo maxaa standard hadduu dhalmo yahayna dumarka ragga meeqay aan fiirnaa hadday shaqo tahayna inta level force maxay shaqada standardka adduunka loo ogol yahay inta cilmiga oo 6 sano jiro ayaa shaqo la'aana reportkada qalad waa because shaqo ma gaarin ba tanax barashada education kii laga hadlayo barashada insan ogol yahay systemkaas cilmiga loo cilmiga oo umku jiro oo cilmiga 3 months jiro adri sheegay مثلا okay xaafada kamid ah waxa ku nool 2 million ku nool like this 2 million ku nool 500 kamid ah umul waa inaad tira 2 million kaas half school ma aadaan adoo xisaabsan umushi qalad waa because maxaa kalaftay standard maxaan ka hadlaynaa wax barasho standard adduun muxuu yahay cilmigu laba jir 3 jir 4 jir maxay grade kala geena carruurta ilmaha kindergartenka ilaa maxay dugsanaha waa in age kaas waxay ku taalaa kadib anoo kaas ka duulaayo aan report qoraa pointii wuxuu yahay marka report waxaa ka horeeya marka hore waa inaad taqaano maxay standardka image loo socdo kadib aan report waxay ku beesgaraysaa aniga waxaan ku heshiinay loo waxa u naqaanaa maalmaha isticmaalay hal ilaa iyo 2 bar isticmaalkayga aad ugu yaraa rafaadan ku qabin maalmaha isticmaalo 2 bar ilaa $7 maxay normal ahaa dib ma qabin maalmaha la ka isticmaalo maxay $7 ilaa $10 maxay bawracayga haayo ahaa shabshabo ahaa maasha Allah marka intaas kadibna reportka marka imaano waxaan rabnaa marka inaan sheego xogta magaceeda sambalkii majority-gii minority-gii aan recommendation kaagina ku darso ha iloobin okay dhageysa marka waxaan dhihi karnaa xogta dabcan magaceeda aan naqaanaa xogaan soo ururinay xogtaasoo ku saabsiisan transportation uu qof sameeyey qofkaasoo maxaa sheegnay xogta magaceeda macluumaadkaasoo ururinayna waxay noqotay 40 days yaa kuu sheegay sample size-kaaga waay xagga markaan joognay intaan ka fahmayay xagga markaan joogana waxaan isku darayaa 18 plus 8 plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 40 waay maxaan sheegnay xogta magaceeda maxaan sheegnay xogta sambalkeeda okay kadib waxaan soo ogaanay isticmaalka bawraaciga boqolkii 45 aad u liitay see ku ogaatay waa 18 days out of 40 waaye laakiin boqolkii 45 kalena isticmaalka bawraaciga maxay normal u ahaa see ku heshay 8 plus 5 plus 5 out of 40 maxaan sheegnay majority maxaa noo haray minority maalmo yar oo 10 days oo sorry 4 days out of 40 maxay isticmaalkayga low ahaa jaamika maxaa gaarnay intaasi majority-gaaga waaye intaana minority-gaaga waaye waxaa majority waxay noqotay lowga iyo normalka waxaa minority noqday maxay because high-ga isticmaalkayga only waa 10% waaye laakiin normality-gayga iyo maxay lowga maxay boqolkiiba 90 markaas ku darsan waaye because 45 waa low waaye 45 waa high waaye waa normal waaye kadib waxay noqotay boqolkiiba 90% of my transportation waxay noqotay low and normal maxaan ka baxnay xogta magaceeda maxaan sheegnay tirada maxaan sheegnay majority-ga maxaan sheegnay minority-ga then marka maxaa dhiman recommendation marka waxaan dhihi karnaa we recommend marka boqolkii 45-ka oo yaraa ee loogaha maxay in xawaala soo kordhi maxay wax loogu daro bas laakiin normalkana waa okay waay loogana maxay loogaas boqolkii 45-kaas looga maxay in xawaala xalliya fiican ama qofku inuu boqolkii 10-kaas dambe ee high maxay inuu save gareysto si maxay hadhow maxay u sameeyay balance marka because boqolkii 10% maxay isticmaalkiisu waa too much high way that 10 maxay we recommend 10-kaas xabba ee ku badan isticmaalkeeda iska soo yareen maxay ku soo maxay ku adjust gareen maxay maalmaha lowga kadib maxaa gaartay normalka 45 way laakiin lowga maxay qayb soo qaado then arrange garey ama lacag ugu daro maxay ugu daro lowgaas waxa kor u qaad dhaxadgii waxaan ka baxnay sida loo sameeyo sida loo sharaxo shalaka sheegay ka maanta sheegay almost same way xagga waxaan ugu dhamaaday sida loo sameeyo histogramka aan ku daro by quickly maadaama isku mid yihiin sida loo sameeyay bar chart isla kala isticmaalay bar chart-ga almost waxaan dhahnay waa isku mid waana kala mid isku mid yihiin waa taagtaagiin laakiin
midka muxuusan lahayn space laakiin bar chart wuxuu leeyahay space space ka imaan doona space waxa ka imaan doona kaliya kalamaan xagaan xagaan marka joogno space u sameey because xagga waxa ka bilaabay $1 ilaa $2 waxaan soo celiyay asimo markaan rabo inaan sameeyo histogram sameynayo waxaan ku qasbanahay inaan kan aan ka bedelo maxay aan ka dhigo 2.6 jaafi groupkan inta ku bilowda 1 inta ku dhamaada 2 bar kan inta ku bilowda 2.6 markaas okay similarly magacaan tiraya maxaan sameyn rabaa bar chart yes okay inta ka bilowday 1 inta ku simay 2.5 waa kana markii next inta ka bilowday 2.6 maxaan ku qasbanahay inaan kan intaan ka bilaabo xaggaas aan bixiyo 2.6 kadibna waxay iska tiro this one sorry wow yes 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 Edward again inaan ka bilaabo kana saas oo kale saas kadibna goon laakiin frequency waa same waxaan soo kordhinaa bis waxaan bedelay kaliya maxay waxaan bedelay kaliya only maxay kan waa 2.6 oo kan waa 4.1 oo kale waa 4.2 5.6 oo kale 5.7 only bis waxaan sameeyay kaliya maxay groups kala qaaday waxaan ku daray point ku daray si maxay loo kala fujiyo marka space marka xagga waxaan kaga baxnay maxay laakiin waa same qaabkiisa inta waxa yaalo CID lacagta isticmaalanta waa كم حياله frequency محاسن بسكلين هاي وكان بحي space ده كان this point المهم بار تارتيجا يسوقران كأسكميت شقده وذا لكن هي قدوم الكلام هاي ما كان سمعنا CI ده هاي هدي اللي جرب يدان سمع بار تارتيجا حاجة مكجوجو وان كان فجنا هدي اللي جرب يسوقران هاي حاجة مكجوم هاي بس كل جناي space لما قرأ انت لكن واسكميت وعن كبحني تارتيجا لو واحد بقول رئيس أو نقول محي histogram iyo bar chart إن شاء الله وحنا دهجنا إن الفهمي سيد الله سماه chartيدا كدي نحي لا خرا كومنتيدا ما ريبوتي إن شاء الله بسنتين thank you so much